Kulan ciyaareed aad u xiiso badan ayaa maanta waxa uu dhexeeya kooxaha Dekedda iyo sidoo kale kooxda Gift Star oo markaasi ciyaarayaan koobka Janada-Ud waana semi-final tartankani. Sidoo kale kooxda kubadda kolayga Gift ayaa waxaa dib ugu soo laabtay ciyaartoydooda ugu muhiimsanaa kuwaas oo ku kala maqnaa fasax waxaana xalay tababar joogto ay sameeyeen iyagoona isku diyaarinaya kulankan waxayna doonayaan in guul ay kasoo tilaabsadaan kooxda Dekedaha si ay guul ugu gaarto. Dhanka kale naadiga Dekedaha oo iyagana tababar ku sameeya garoonka macquulka markaasi jaaliyadda Yemen ee degmada Shibis ku yaala ayaa iyadana isku diyaarisay diyaargarowga ugu dambeeyay ee kulankan uu yahay mid lagu xifaaltami doono tartanka kubadda kolayga ee Janada-Ud iyagoona sanadkan iskugu imaadeen semi-finalka. Labadan kooxdii badisa ayaa waxay aadi doontaa tartanka kama dambeysta maanta ayayna ku ciyaari doonaan garoonka kubadda kolayga ee Wish Stadium ee degmada Cabdicaziz. Kulankan ayaa xiisihiisa wata waxaana kasoo qayb gali doona taageerayaasha labada dhan oo isku diyaarinaya kulankan waxaana koox walba ay ku xisaabtami doontaa natiijooyinkooda. Kooxda Gift ciyaartoydooda dhammaan tam ay u yihiin xidig ka maqan ma jiro. Sidoo kale kooxda Dekedaha ayaa iyadana dhammaantood ay isdiyaariyeen waxaana ay sameyn doonaan kulankan isbedel weyn maadaama kooxdan kulamadii hore usoo ciyaartay Dekedaha si nadiif ah ay kusoo baxday booska kaalinta koowaad ee markaasi ayad iyo heegan ay kusoo baxeen. Kulan aad u xiiso badan ayuuna ahaa kulankan ay wada sugayeen dhammaan dadka daneeya kubadda kolayga.